dhibane falxado cali xasan waa gabar yar oo 5 bilood jir ah waxayna la xanuunsanaysaa buro kaga taala qaybta dambe ee jirkeeda waxaana laga keenay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Toorotoro waxayna ka soo jeedaa qoys sabool ah oo aan waxba haysan dhakhaatiirta isbitaalada waxa ay sheegeen in qaliin lagu sameynayo kharashaadka qaliinka ayaa lagu sheegay in uu gaarayo $4,000 Mareykanka waalidiinta gabadhan yar waxa ay ka codsanayaan bulshada Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya inay ka caawiyaan kharashaadkii lagu qali lahaa maadaama aysan heli karin iyagu kharashaadkaasi Aabe Cali Xasan oo ah aabaha gabadha dhalay ayaa ka dalbaday dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay ka caawiyaan lacagahaasi lagu qalayo gabadhan xaaladeeda waa ku dhalatay waxaan ka imid Shabeellada Hoose oo dhinaca Toorotoro xagga degmada Toorotoro aan ka imid marka gabadhan awoodan u waayay oo lacag oo aan alobaha oo isbitaal aan loo tagay waa xaaladeeda saas marka waxaan u baahanahay in oo gabadhan wax laga qabto gabadh Soomaaliyeed waay Sheekh Cabdi Fataax Nuur Muuda Cadde oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay in la caawiyo qof dhibaataysan hadii Ilaahay yiraaho waxa way tabar looma hayo waxaan ku qalnama hayno hooga lacag aad u badan aan noola sheegay isbitaalka lacagtaasna insha Allah Ilaahay baari waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa ummadda muslimiinta oo muxsiniinta ee Soomaaliyeed in ay maaragtay tabarucaad u suubiyaan oo ku tabarucaan maalkooda Ilaahay Quraanka wuxuu ku leeyahay ataawunu 'ala al-birri wat-taqwa wa la taawunu 'ala al-ithmi wal-'udwan in la saawiyo waa shaq waa maaragtay aad iyo shay aad wanaagsan waay waxaana lagu jiraa waqtiga ugu wanaagsan oo wax la isku caawiyo marka waxaan ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed dal iyo dibad inta joogto waxaan leeyahay waa gabadheeni waa u jeedin way dhibaataysan tahay xanuunkaas la hayo waa tawaajiis naas bay nuugtaa 5 bilood oo kaliya hay jirtaa 5 bilood Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho